بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنان والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaan salaameynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan ku salaameynaa salaanta islaamka salaanta ciisada iyo sharafta leh salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh runtii maqaalkan maanta aadka cajiibka u ah waxaan rabnaa inaan uga faa'iideysano barnaamijyo badan oo ku taxalluqa arrimaha caafimaadka khaasatan talaalka waa warbixin ku saabsan xaalad xumada ka jirta dhammaan gobolada Puntland waxaan rabnaa insha Allah maanta inaanu ka warranno dhibaatada ka jirta dhammaan gobolada dalka gaar ahaan Puntland insha Allah waxaan aad uga mahadcelinayaa macadka culumta daraasaadka midnimo Institute for Political Science and Knowledge guddiga loo xil saaray baarista arrimaha caafimaadka xaalad xumada ka jirta gobolada Puntland oo ugu horeeyo Dr. Kamaluddin iyo dhammaan aqoon-yahanada ku xeel dheer arrimaha caafimaadka waxaanu leenahay jazakumullahu khayran ilaahay subxaanahu wa tacaala ajarka xasanaadka idin geliyo warbixintan aadka cajiibka ah cilmi baaristan oo ay sameeyeen macadka culumta daraasaadka waa warbixin la xiriirta ama ku taxalluqda arrimaha caafimaadka khaasatan talaalka iyo waxyaalaha ka jira iyo dhibaatooyinka iyo hagardaamaha ka jira gobolada Puntland insha Allah waxaanu rabnaa inaynu maanta isku dayno ilaa dhowr qodob aynu kaga waranno khataraha ka dhashay talaalka muddooyinkan 4 sano hadda u dambeeyay waa warbixin la rabo inaynu ku fiirino ku xaqiijino ku analyze garayno waxyaalaha ka jira dhammaan gobolada Puntland marka aynu baarnay sida macadka culumta daraasaadka uu sheegay xogtiisa dokumentiyada uu la wadaagay dhammaan bulshada runtii waxaa soo baxday arrin aanu aad uga yaabnay marka aanu baarnay markaynu tagnay xarumihii caafimaadka markaynu tagnay cisbitaaladii markaynu tagnay goobihii clinicalka markaynu tagnay goobihii caafimaadka MCH-yadii waxaanu ogaanay 90% boqolkiiba 90 marka la fiiriyo in runtii laba qodob ay maanta mas'uul ka noqon doonto wasaaradda caafimaadka Puntland waxaa jiray caruur fara badan oo ku waxyeeloobay naftooda ku waayay waxa weeyaan maanta qaybtoodna waxa weey cisbitaalada dalka ay ku jiraan xaalad xumo ka dhalatay talaalka walidalika qodobka labaad oo xiga waxa weeye hooyooyinka uurka lahaa oo saddex midkood noqonayay markii aan warbixinta ku eegnay hooyooyinka uurka leh saddex midkood bay noqdaan in waxa weeyaan hooyadii iyo ilmihii la badbaadin waayo isla dhintaan in hooyadii la badbaadiyo laakiin ubadkii aan la badbaadin karin ilmihii la badbaadiyo laakiin aan hooyadii la badbaadin waxyaalahan ku soo ogaanay intaanu xogta wadnay waxaa dhacday arrimo runtii aad gobolada Puntland looga naxsaday ama looga naxay waxaa kamid ah runtii dad aad u fara badan inay wax ka soo gaareen talaalkaas runtii waana wax runtii aan loo baahnayn 2014 waxay noqday 2014 wuxuu noqday 2014 wuxuu noqday sanadkii ugu xumaa ee ubadka Soomaaliyeed ay talaal iyo darxumo ay u dhintaan gobolada Puntland saddex meelood markii laba meel loo fiiriyo sanadadan hadda ka horeeyay wax aad looga xumaado qaybtood maanta runtii waa ina ka hooseeyaan qaybtood maanta waa wax ku ayooloween qaybtoodna maanta waxa way cisbitaal ay ugu jiraan waana runtii arrin aan loo baahnayn haddii saa ay ku sii socoto xaalad xumada ka jirta gobolada Puntland waxaa imaan doonta heerkan ka daran inay gaari doonto waxa weeyaan waxyaalaha aynu ogaano waxa kamid ah in dhalmadii hooyada ay yaraatay in hooyooyinkii ay ilmihii ay ku tacadiyaan ama ilmihii waxa weeyaan ay dhali waayaan walidalika waxa u sabab ah talaalka in la yareeyo geneticska ilmaha iyo waxa way dhalmada in la yareeyo talaalka runta mas'uulka ah waxa jira cudurro fara badan oo waxa way talaalku uu sababay oo dalkan ka dhashay kamid ah sida kuduudiyaha waxa weeyaan shalalka waxa weeyaan iyo cudurro inta ka badan sida kansarka oo kale iyo qaybihiisa kala duwan kan dhiiga lafaha waxa weeyaan caloosha meelo badan ku dhaca walidalika waa arrin aad looga xumaado way
waxaan wasaaradda caafimaadka puntland u sheegaynaa in arrinkan wax laga bedelo, in arrinkan wasaaraddu ay waxa weeyaan qodob ay kasoo saadheen la ogaado waxani waxa weeyaan. aan soo qaato taariikh yaroo dhacday. waxaanu la kulannay koox dhalinyaro ah ama koox hooyooyina ama bahweynta caafimaadka ah oo maalmihii tallaalka ay tallaal wadeen. marka aynu isxog wareysanay oo aynu isbadinay kadib waxaanu ogaanay hooyo kamid ah inaynu la wadaagnay, aynu la sheergaraynay bal waxaan inaynu tusaan. walidaalika markiina la tusay waxayna kasoo baxday runtii arrin aada looga xumaado, sida waxa weeyaan qaabka qalabka ay adeegsanayaan temberaturkooda, waxa weeye dayaxumada ka jidha, expireka dawadii oo waxa weeyaan iyo waxa weeyaan tallaalkii oo waxa weeyaan sida xogta ku qorneed bishii 3/9/2011 expireka oo dhacay ahaa in waxa weeyaan waxyaalo badan waxa weeyaan isku dhex qasnaayo meesha huur iyo waxyaalo badan ay ka jireen. marka waxa weeye waa xaalad xumo ka jidha gobolada Puntland. wasaaraddu qalab ahaan uma diyaarsana, waana midda keentay maanta in ay dhibaatada intaa leeg ay dhacdo wey. runtii waanu la soconnaa taariikhda 2014 ilaa 2018 waxa ubad dhimanayay, waxa hooyooyin dhimanayay, waxa dad waxa way dhimanayay. wasaaraddu waxa weeyaan cidna maysan weydiin. runtii aan soo qaato wadamada dariska Libya waa la ogyahay wixii ka dhacay 45 qof hal meel waxa way cudurka AIDS-ka ku qaaday. Algeria 15 caruur ayaa talaalka lagu sumeeyay. Masar walidaalika sidaas oo kale caruur fara badan ayaa ka dhacay. Guinea oo hadda Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya ay leedahay xiriir baan u jirnay, waa wadanka ugu horeeyay oo Ebola uu ka dilaaco 2013. Congo walidaalika sidaas oo kale. Uganda waa ka dilaacay oo 2 milyan baa ku dhintay. walidaalika Kenya hadda waa soo galay. haddaysan dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya aysan ka gaashaaman waxyaalaha ka jira gobolada Soomaaliya, arrintaas khatar bay ku tahay. waxa weeyaan ka waantowno, aynu iska ilaalino, aynu la soconno xaaladaha iyo waxyaalaha gardaamooyinka ay ka jira gobolka. walidaalika markuu aynu baarnay aynu wax badan ogaanay waxa inoo soo baxday ilaa rhythmology-ga markaynu samaynayno the first way caqabadihii markaad ogaato, dhibaatadii aad ogaato, waxyaalihii facts and figures iyo waxyaalihii la xusboonan aad ogaato, xalku muxuu yahay baa imaanaya. marka walidaalika waa wax runtii aynu ka soo saaray runtii waxyaalaha sababaha u ah waxa kamid ah aanu markaanu research-ka baarnay aynu noo soo baxday waxa kamid ah number 1 waa baabi'in iyo xasuuq lagula kacay ubadkii Soomaaliyeed iyo hooyooyinka uurka leh. in ubadkii Soomaaliyeed qaar ay ku waxyeeloobeen talaalka, qaar ay ku naafoobeen, qaar ay ku dhinteen, qaarna maanta isbitaalada dalka lagu dabiibayo. hooyooyinkii uurka leh inay 3 midkood ay noqdaan oo waxa weeyaan sidaan hadda ka soo waramayna 3 midkood noqdaan, in ilmihii ama hooyooyinkii aan la badbaadin karin oo isla dhintaan, in hooyadii la badbaadiyo laakiin aan ilmihii la badbaadin karin, ilmihii la badbaadiyo laakiin aan hooyadii la badbaadin karin. qodobka labaadna waxaa kamid ah in la yareeyo dhalmada ubadka Soomaaliyeed, in la yareeyo oo hooyadii 3 midkood ay noqoto. walidaalika waqtiyadan dambe hadda 2019 oo hadda ku jirno oo 6 bilood hadda ka haray waxa way aad bay dhalmadu u yaraanaysa, walidaalika dhimashaduna ay badanaysa. marka walidaalika waxyaalaha sabab ah number 1 waxaanu ku eedeyn karnaa waxa weeyaan talaalka sabab ah. waxaad arkaysaa caruur fara badan oo waxa weeyaan macaan ku dhacay, kuwa sonkor ku dhacay, kuwa shalal ku dhacay, kuwa kansar ku dhacay, kuwa macaan ku dhacay, kuwa dhiikar ku dhacay. walidaalika maxaa sabab ah? talaalka sabab ah. wasaaraddu waxay sheegtay inay jiraan cudurro fara badan oo dalka Soomaaliya lagu talaalay oo ay kamid yihiin sida hadda hore waxa weey gaashaanka aynu ku dhufanay, sida cudurka kansarka, waxa weey kudushaha, waxa weeyaan iyo waxa weeyaan iyo cudurro inta soo raaco aad iyo aad u daran. inay jiraan caruur fara badan oo ku waxyeeloobay talaalka, qaarkood ay ku dhinteen, qaarkood ay ku naafoobeen, qaarkoodna hadda lagula tacaalayo waxa weeyaan gobolada dalka. walidaalika 2014 ilaa 2018 waxa weeyaan cid baa waxa weeyaan ku waxyeeloobay talaalka. walidaalika wasaaraddu kamaysan hadlin. xadiiska nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam kullukum mas'uul wa kullukum mas'uul an ra'iyatihi. waxa weey qof kasta wuxuu mas'uul ka yahay wixii la raaciyay. imaamku wuxuu mas'uul ka yahay ummadda la raaciyay ilaa nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam uu soo gaarsiiyay guriga.
guriga waxaa mas-uul ka ah odayga gadaashi waxaa ka ah mas-uul qofkii dumarihi qof kastana waa la weydiinayaa aakhire wixii la raacshay iyo ciddii la raacshay. marka waxaad moodaa wasaaradda caafimaadka puntland iyo wasaaradaha kale ee dalka ka jira inay ku fashilmeen waxa weeyaan mas-uuliyaddii loo idmay, inay ku fashilmeen inay ilaaliyaan waxa weeyaan xuquuqda caruurta, inay ilaaliyaan oo ay ka daayaan hagardaamooyinka iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan gobollada dalka. waa wax aada iyo aada looga xumaado, aad baanana runta uga xumaaneen. walaal markaa xalku muxuu yahay? markaad wax baadho oo caqabadihii ogaatay oo waxa keena ogaaday oo sababihii ogaatay, xalku muxuu yahay? waa in walidaalika xalka laga hadlaa wey. markaas xalku wuxuu noqonayaa in dadka lagu wacyigeliyo ama bulshada soomaaliyeed lagu wacyigeliyo inay hooyooyinku inay ilmaha naaska nuujiyaan ilaa 2 sano. walidaalika siduu ilaahay subxaanahu watacaala noo sheegaya min suurati albaqara beytka 37 aaya 232 ilaa 233 walwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xaawalayni kaamileyn. war ilmaha hala siiyo naaska 2 sano oo kaamila, isagaa difaac o ah, isagaa waxa weeyaan khatarta iyo dhibaatada waxa weeyaan ka hor istaagi kara, isagaa naxariis u ah, isagaa karti u ah, isagaa maskax caafimaad qabta u ah. 2 sano oo kaamila haddii la siiyo cunugaasi liayi meel kasta imkaaniyaad kasta waa ka dhamaystiranya. marka in dadka lagu wacyigeliyo in waxa weye siduu ilaahi subxaanahu watacaala uu nafaraya in la qaato, in guddi loo xil saaro arrimaha caafimaadka gobollada puntland oo la baaro waxyaalaha keenay khataraha intaa la eg, oo in ubadkii soomaaliyeed ay dhammaadeen, in ubadkii soomaaliyeed ay baaba-een, ay waxa weeyaan gaag ay noqdeen, sidoo kale hooyooyinkiina ay dhammaadeen. walidaalika in xogta la baaro, la ogaado waxyaalaha sababay, in runtii iyaduna aada bay mas-uul u tahay. sidoo kale in tallaalka dib loo eego, guddina loo saaro waxa uu ka samaysan yahay, waxa uu yahay. walidaalika waxa weeyaan heerka uu maray, caqabadaha jira, waxa weeyaan ayadana runtii waa wax aada iyo aada u muhiima. mas-uuliyaddaas waxaa qaadaya dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha dhexe, waxa weeyaan dowladaha puntland oo kale. waa in meel la sooraa, la ogaadaa waxyaalaha dalka ka jira. intaasaan kusoo koobaynaa. runtii warbixintan warbixin lamida insha allah ayaanu soo bandhigi doonaa hadduu alla idmo. waxaa la rabnaa insha allah in barnaamijka waxa weeyaan lala socdo, la ogaado waxyaalaha runtii ka jira dhammaan gobollada dalka oo dhan, khaasatan waxa weeye gobollada puntland. maanta waxa weeye guddiga cilmi baarista aad baan uga mahad celinaynaa sida ay noola shaqeynayaan iyo bulshada soomaaliyeedba. waxaan ku salaamaynaa salaanta islaamka. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu.